gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ucud injineer Faysal Cali Waraabe ayaa saaka dalka dib ugu soo laabtay waxaana madaarka Hargeysa ku soo dhaweeyay hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga ucud. Gudoomiyaha Faysal warbaahinta la hadlay waxa uu cadeeyay in aan wax wada shaqayn ah marnaba dhaxmari doonin komishanka cusub ee doorashooyinka isniintana ay shir iskugu iman doonaan xisbiyada mucaaridku. Waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay in madaxweyne Biixi isagu dalka gacantiisa khalkhal ku galinayo waa sida hadalka u dhigay. Gudoomiyaha oo ka hadlaya arrimahan ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa salaatu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ilaahay ma hadlay subhanahu wa ta'ala. Ilaahay nabad qabka nagu keenay ma hadlay. Anagu caafimaad qaba dalkii nagu soo celiyo ma hadlay. Tagana waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadkiina naga hor yimi odayaashan iyo dadka khiyaartana aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa. Daanu waan maqnaa bilba hadda maqnaa alxamdulillah rabbil caalamiin. bishaan maqnaana dibaddan ka soo shaqaynay waa ogtiino dadkeena dibaddu warar xun baa u taga wararka uu bixiyay professor Abiyan second hand smoking uu bixiyo war gacan kale ku yimi oo kii aan direct ahayn baa ka weeyay marka way confuse garoobeen waxaan ka soo shaqeynaynaa dadka horta runta u soo sheegno in dalka wanaagiisa iyo Cabdiraxiim Wali Ismaaciil shabakada wararka Kelis News magaalada Hargeysa. Suudani waxaan tagnay dalka magaalada London UK aad iyo aad bay noo soo dhaweeyeen anaguna waan dhiiri gelinay niyadoodii waan soo kicinay alxamdulillah rabbil caalamiin inay wada shaqeeyaan oo ay gamcays qabtaan wanaag ka wada shaqeeyaan. Arrintan hadda dhacday ee axadii dhacday horta waa maalintaas waa maalin madow dalku 2 sanadoodba intuu markaa madaxweyne Muuse Bixi gacanta ku hayayba wax ka dhaca mooje wax u kordha ma jirin. Anagu dadku waxay lahaayeen mucaarad adag baa loo baahan yahay laakiin waxaan arkaynay mucaaradda adag inaanay magaalada ay ka fiican tahay inaanu wada shaqayn ku dayno tanaasul sameeyno. Tanaasul badan baa la sameeyay waxaa ka mid ah tii caara ka mid ah tii komishanka ka mid ah ergadii weyneeda u timi rag waaweyn ahaa dadka beesha dhan ka socotay waa arkiseen TC baa la yeelay waxaan ku niri arrintu waxay taagan tahay labadii dumarka ee isku qabsaday magaalada halka qof ilmaha yar tii noo kala jar Muuse halkaas u taagay maanta waxa taan kala jar mana Soomaaliland adigu taadanu yeelinaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka arrintaa geystay. Arrintan komishanka wad ogtayn intay soo socotay anagu xabadeedii komishanka heed waxa ka maqlayay dadka oo leh ucud kamay saarin anagu horta markii komishanka markii la qaybiyay waxa la yiri asxaabta laba soo magacaabeen 2 qof oo xusbi ahayn oo lagu dooranayaan akhlaaqdooda iyo cilmigooda iyo kartidooda ma hadda xusbi ah ma soo doontaan ka daba taagnay ma ka taan leenahay qofku wax xusbi ka saar mar haddaan magacaawno oo gudbino anagu awood kuma leeyin madaxweynaha gudbinaya baarlamaanku maraya marka waa commissioner laakiin anagu ma xukuno isaga jirtaa inuu resign gareeyo laakiin anagu waxaan oo furan deesaay marka xusbiga ma qolka soo taagay madaan aragna commissionkaas xal ka soo bixin inuu yahay inaan la shaqeyn halkaas uu ku caaridiyaa loo baahna ka soo baxayo ka joogmo macna awood uma leeyin. Arrintan da jirta waxa weeye arrin laba xusbi maaha waa faqran baa dhacday waxaan doonaynaa inaanu wadanka intan lagu soo eegi maayo hadda si lagu soo eego waxa weeye waa burburkeena waxaan jecelahay markaa inaan insha Allah taala aan bilowno magaalada wada tashi waxgarad ka Soomaaliland oo dhan sabti iyo axad insha Allah taala waxaan jecelahay aan odayaal soo wada hadalay
dareenkana waa jiraa inuu dalku maanta ka laadlaado meel khatara wixii laga yeeli lahaa arrintan inagoo u dhan reer Soomaaliya dhan u dhan tahay taladeedii inaan doonana insha Allah tacaala madaxweynaha qudadiisa ma itiri baa jirta waxaan leeyahay markuu noqo waxaan kala soo noqdaan waan idin sheegi doonaa insha Allah marka isniinta insha Allah tacaala anagoo soo wada dadkii soo arkay isagiina la soo arkay hadduu day ogolaadaba waan yaan warbixin fiican bixinayna way ka baxday hadda yootin iyo hebel u jawaab hadda action baa loo baahan yahay ficil dalka lagu badbaadiyo waxa inagu dana waxa weeye dadka xilka loo saaray dalka ee mas'uulka ka ahaa ayaa maanta dalka khatar gelinaya amba haato baarlamaan amba guurta haato amba madaxweyne sharciga ilaalinayay inuu dadka sharciga ku ilaaliyo ya isagu sharcigii maanta ku tumanaya oo waxaan uguba oo weliina soo marin baa weeye madaxweyne annaga nagu ilaalinayay sharciga qofkan soo magacaawno eegaya nagu celinayay inuu isaga u bareero dawaan u bareero hore wax bareero wadaga aragto gole deegaan oo la dooran waqti ka dhacay oo waxba loo macamalin ayaa maanta hadana shaqeynaya markaa wax kasta wax ortay in uu suurta geliso laakiin tan waxa ku go'ay bay la tahay arintani waxa ku dhimanayay bay la tahay markaas ay u harsan tala ayaa jirta dadku uu wanaagsan yahay dibadii guud waan soo marnay adduunku way naga jeedsanaya gaal iyo muslim ba taqaanay way ma shaqeyn ma hayna leeyihiin waa dalka waa loo sameeyay marka ay la isniinta insha Allah tacaala isniintan bayaan soo saari doona go'aamadan qaadana insha Allah tacaala ilaa waxaan ka baranayaa Ilaahay isna qalbigiisa hagaajiyo inaan ka baranaa isna ducaynina aanu sanadna la arki jiray maaha wadan taagan intii waxay tahay maxay Faadima Saciid وين بنشرنا بيجري وبنشر لكن هم ولو بنشرتنا لو ومشر لو سؤال لو بنشر يعني دو بنشر ولا بنشر كراي لما قررنا مكاس إن شاء الله تعالى وين استنت إن شاء الله إن شاء الله. قدومي ما عيقول لقمان محمد وكتر سنة التسبيش واحد شرتا لبدا حسبي معارض وطني يعيد مر هورانا خلاف كاس مدة دير قدتك كلمية ودور الشمال دعين من السلية يديك لفتقينا خلاف كدبدا كريحة هدي هلك حبين وطني كم مكان ما تكون عيس حسب وطني نسوم قعودان دتنا دور الشمال اللي قبته يوضا اللي حبنا تبلو وذا بدله يوضا هلك حبنا نسوم قعاب كيبا فضل قدومي ما ارتدى كودو مقعابين ومقعابي هاي لكن ماشي وحوي وحان معقول هين الشرع اللي تشبيه أنا أقولانه أنا ما أقولان إنه حبنتا مكان ساي إن هي راع إنه شقيه ما آمنينه لا شيء وتشبيه وحلم ذيكي لو إري فوسي يعني كي هو كاني وحلم ذيكي أنا فضل لو إري محمد فضل إلهان لو إري بوي لو أول وعي ما كان إنه يلا مدحونه وحن دنيا شرعية ما شفت شرعي وكاقرا ما قال إنه تدومي مقعد واحد سكر عن هالسؤال بدوني نقوديو حسب معارض كعيد لنا وحلي دور الشدي أنا قوان كسوه تشيدنا sidoo kale xubintiisina waa tan waa kale wakiiladu waa ansixiyeen halka uu wadani ka taagan yahay wadani xubintiisa uu la noqdo lama ansixin bal adigu shacabka waxaad u cadaysaa adigu ma halka wadani ka taagan yahay mowqifka doorashada iyo xukuumadda ayaad ka taagan tahay mise waxa doonaysan labadii dhinacba ka dartaan oo adigu xaqan aad ka soo horjeedo xukuumaddina ay ma wata ka jawaabay anagu awood haddaan magacaano awood uma leeyahay qof xusbi maaha waa qof aan aqoon u baranay karti u dooranay qof aan u yeedho kama wadani hadduu yeedh kariyo kii ugu jiro hore sagal muu ilaa ka soo bax commissionkii hore awood kuma leeyahay waa commissioner bayna anagu magacaano isay jirtaa inuu asilo inuu ka tago laakiin anagu ma leeyahay laakiin waxaan ku sheegaynaa commissionka uu ku jiro ninka qaladka ku soo galay doorasho ku gelimayno dib goosha dhici weydana talaabooyin kaan qaadana dawlad la'aan ma jiro